anigoo ah cabdirasaaq xasan jaamac kana mid ahaa ururka dabaqoodhiga magaranaysa ay soo dirsadeen dowladda tigreega ama dowlad isku sheegka tigreega ee uu hogaaminaya xildhibaan Dhisaale muddo badanna ku jiray ka mid ahaana ardaydii dalka wax ku baratay ee muddo badan dalka joogtay macal bartay afka xabashiga ama luuqadan ay ku hadlayaan ee xabashiga ayaa waxaan doonayaa inaan halkan ka caddeeyo tacadiyada iyo dhibaatooyinka badan ee deegaankeena ama dalkan ogaadenya lagu hayo taas oo aan doonayo in ay hay'adaha xuquuqda bini'aadamku ilaaliya in ay sida dhabta ah observation ama u kurgelid ugu sameeyaan iyagoo iska indhatiray dhibaatooyinka lagu hayo dadka shacabka ah iyagoo u guntaday sidii ay u gumaadi lahaayeen shacabkan reer ogaadenya shaadhna u gashaday marka hore ama shaadh ku qarinaya waxaanu leynaynaa waa onelefna hal nin oo ka mid ah ciidamada onelefta iyagoo aan wax dhibaataa u geysan ee dhibaatada ugu badan ay ku hayaan shacabka degan dalka ogaadenya shacabka degan dalka ogaadenya boqolkiiba 75 waa xoolo dhaqato 30 kaliya ayaa kasoo gashay magaalada dhibaatada ugu badan ee dadka xabsiyada ku jiraana waxa weeyaan waa dadka xoolo dhaqatada ee boqolkiiba 75 kadib haddii aan falanqeeyo aas-aaskii ciidamada liyu booliska ee ururka dabaqoodhiga ayaa waxaa la aas-aasay anigoo ku caddeynaya taariikhdan ay isticmaasho Ethiopia ee adduunyada dib u dhaca ka haysato ayaa waxaa ciidamada liyu booliska la aas-aasay 1999 isaga oo ninka la yidhaahdo Cabdi Ilay waqtiga oo ahaa hoggaanka amniga aas-aaska ciidamada liyu booliska waxaa jirtay in habeen dhaweyto u dambeysay uu ku dhawaaqay ninka la yidhaahdo Cabdullaahi Yuusuf Yarar ama Cabdullaahi Ethiopia ahna hoggaanka amniga iyo beddelay Cabdi Ilay inuu yidhi ciidanka liyu booliska waqtigaa la aas-aasay 1999 nimankii ugu horreeyay ee kasoo baxay tababarkii jinacsada in waxaa loo aas-aasay in ay boobaan dilaan dhacaan inuu yahay ogaadeen cid walibana ay ka daawan karta miidiyayaasha okay haddii aan ka hadla tacadiyada ay ku haysaan dhibaatooyinka waxaad dadku ay intooda badan ay dhegeysteen ama ay maqleen dhibaatadii ugu darayd ay ka geysteen galaashe waxaa jirtay dhibaatadii ugu badnayd ay ka geysteen meeshii la oran jiray ee jigjiga agteeda ahayd ee buladari iyaga oo gumaaday shacabkii taasoo jeelka la yidhaahdo jeel ogaadeen la igu keenay dhammaan wixii jidwaaqa ee deganaa buladari iyaga oo weliba laga soo ururiyey qoryihii qabiiliga lana leeyahay waa qoryo ay ka howlgalaan ciidanka onelefta kadibna dib lagu ogaaday inay yihiin qoryahani qoryo qabiili arrintiina dib la iskaga qabsaday waxaa jirtay awaare bunagado birqood dhagax madow meeshii la yidhaahdo mustariiqa burdumi iyo caale shineyla oo ka tirsan dhanaan girigo-an hadduu la yidhahdo gaashaamo xarshin gumaadyadii ay ka geysteen dhibaatooyinkii ay ka geysteen iyaga oo ciidanka liyu booliska in ay xataa galeen tuulo ka tirsan dhanka Somaliland kuna soo gumaaday shacab sidii ay u isugu tiri lahaayeen shacabka ay dadweynaha ogaadaya dariska yihiin ee Somaliland oo halkaas dhibaato baan uga geystaan oo marka dambana qabiili la isugu laayo arrintiina ilaa markii dambe heer qabiili gaadhay iyadoo aan halkan kusoo koobi karin tacadiyada halkan ay ka geystaan ciidamada liyu booliska haddii aan ka hadlo qaab dhismeedka dowlad ku sheega ina ilay uu hogaaminayo waxaa jirta ina ilay inuu aas-aastay guddi fulin golo dhexe iyo kamaneed uu isugu hogaamiyo ina ilay inuu isku yahay madaxweyne ku sheega dowladda dabaqoodhiga inuu yahay guddoomiyaha kamaneedka inuu yahay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga inuu yahay xildhibaan inuu yahay golo dhexe inuu yahay guddi fulin intaasoo xil isagoo isku haya inuu haddana qaab dhismeed ka dowlad ku sheega ee kililka inuu u sameeyey xubno isaga mooyeen amarkiisa aan qaadan karin haddii aan dib ugu noqdo ciidamada liyu booliska hogaamintooda sarkaalka ugu sarreeya ciidamada liyu booliska waxaa la yidhaahdaa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Buraale oo ku magac dheer Cabdiraxmaan Dabogole waxaa ku xiga Cabdi Aadan Waris waxaa ku xiga Mukhtaar Sheekh Maxamed Subane dhammaantood waa reer Cali Yuusuf waana xal qoys reer Cali Yuusuf ma mateli karaan qadiyadda ogaadeen waa maya
ومدنا إيش كتير. أوكي هدي أنا كهذا قاب دسمتك إن دول سكوشيا كيلفا وحنا سميستي صدح مدعوين كليين صدح ضبع وصدح وصار كان صدق أو أمنيتيسا موين أمر كلام أو كشقينين وحاجرتا إن أو أوركو أنا لف قتل معمي مجا على هذا أبو سيدا إنه قلنا كانوا وشيء لو شفت الصبغ عنها لقنا استعماله وضمان قلبك يسقون وحنبارتي مجا أنا لف بانه وحي taasi ay noqonayso dhiirigelin shacabweynaha dadka reer Uganda ay u tahay dawladda Itoobiya ee gumaysiga iyo tacadiga ku haysan ay ku tahay dabarjab maadaama uu yahay madaxweynihii sheeganayay xukumay xilka shanaad inuu yahay dawlad ka mid ah dalka Itoobiya sheeganayana magaca ONLF madaxweynayaashii ku horeeyayna ay iska ilaalinayeen magaca ONLF isaguna uu dhabarka u xambaartay taasina ay u tahay guul weyn u soo hoytay shacabweynaha Uganda okay haddii aan ka sheekeeyo dhibaatooyinka ka jira siyaalka dhexe ama jeel ogaadeen waxaan galay taariikhda Itoobiya markay ahayd 2002 bishii 8 xilliga uu madaxweynenimada isu soo shaqeeyay leeyahay waxaana ka soo baxay 2005 bishii 1 anigoo muddada inta dhanjeer ku jiray dhibaatooyinka ugu daraa waxyaabaha aan kula kulmay ama aan ka arkay waxay ahayd gabdho kursi loo geystay gabdho ay cadhadu ku dhacday gabdho lugaha loo iska geliyay intaasna waxaa ka geysanayay ninka la oran jiray Cabdi Bada Cismaan oo xilliga iyada ahaa komishineerka haysta Jeelogaadeen waxaa Cabdi Bada Cismaan taliye oo ahaa Awiis Sheekh Khaliif nin la oran jiray oo habeen walba gabadh u soo saari jiray si uu kursi ugu geysto Cabdi Ilay mas'uulka ama ninka mas'uul isku sheega oo sida tooska uga amar qaato ee kiilka maanta gacanta ku hayo waxa la yiraahdaa Cornel Sagay waa ninka garbaca safdhiya waa nin Tigray amar uunan isaga siinina kuma dhaqmi karo lamana oran karo waxa weeyaan dawladani waa mid gaar Soomaaliya ilaa ay hadda waxa gacanta ku haya Cornel Sagay tusaale haddii aan soo qaato waxaa jirtay nin Tigray oo laga soo qabtay Wajaale laguna soo qabtay $130,000 oo doolarka si uu uga soo sarifto Wajaale iyadoo Itoobiya uu doolarka mamnuuc ka yahay ninkii Tigray ahaa waxaa dhacday in Jeelogaadeen lagu soo xiray 15 sano lagu xukumay in ay gabadhiisu intay carartay u tagtay Cornel Sagay ay tiri waa maxay magaci Tigray mid baabay inta uu qasbay inuu yiri bartan fadhi in darawal la soo diray darawalkiisi Jeelogaadeen ninkii laga soo saaray kadibna Cornel Sagay oo la soo haday inay oo yiri hal saac haddii ay dhaafto lacagtaasi ma garanayaan wixii dhaca saacad iyadoo oo gaadhina laga soo qaaday lacagtii wasiirka maaliyadda ee la yiraahdo Maxamed Ibrahim waliba lacagtii oo sideedii u dhamaystiran kadibna Cornel Sagay garbaas loogu keenay dhibaatada ugu ba'an ee Cornel Sagay dalku hay waxaa jirta gabdhaha ka shaqeeya wadooyinka cobblestone waa gabdho caruurtii ay dhaleen waxay ku korsadaan loona geystay kursi una u geystay Cornel Sagay qaarkoodna ay uur qaadeen iyadoo habeen walba loo geeyo gabadh u dhalatay dalka ama ogaadeen ha ahaato ama dad kala degan ha ahaato waa habeen walbana kursi halkaa ka geyso gabdhihii markay uur qaadaana reerkoodina ay deeriyaan inay noqoto in ay $30 bishii ku shaqeeyaan oo dhagaxa wadooyinka jabiyaan meel ay u cararto iyo meel ay miciistara ay weydo gabdho badan oo sidaas oo kale oo ku jira ilaa ay haddana Jeelogaadeen u jiraan dad badan oo Jeelogaadeen dhexdeeda dhibaatooyin loogu geystay inay jiraan haddii aan ahay Cabdirasaaq Xasan Jaamac anoo ka mid ahaa maamulka sheega kililka ee uu hogaamiyo ilay ayaa waxaan ka soo cararay dhibaatooyinkii lagu hayay tacadiyada iyo shacabka loo geysan jiray waxaa dareemi kartaa inay inuunan abaal lahayn ninkii isaga wax baray ee sameeyay in la dhageysto tooraanyaha ONLF-ta ee aas-aasay idaacadan ESTV ee dadweynaha beenta looga sheegayo ee la oran jiray Guuleed Casoo inuu ku xiran yahay jeel la yiraahdo Suway oo Itoobiya ka mid oo isaguna gacantiisa ku xiray laguna eedeeyay gaarigan xageed ka soo iibsatay oo kaliya qofkuna uunan awood u yeelin karin inuu gaari iibsado inay lacag dheeriya soo gasho dhibaatooyin badan ay halka ka jiraan haddii aan ahay Cabdirasaaq Xasan Jaamac waxyaabaha kale ee ka hadlaya waxaa ka mid ah beenta iyo propagandada lagula dhaqmayo dadka qurbo joogta ah anigu waxaan joogay Jigjiga waxa ay ugu timid min cadareen waxa ay ugu timid Canabiladaad waxa ay ugu timid baylowdadii Asli Xasan Jaamac dad badan ayaa igu yimid dad Cabdirashiid Colaad baa igu yimid oo Ingiriiska dad badan oo qurbo joog ay igu yimid waxaan ogahay qaabka loo dhamay waxaa jirta qofka qurbo joogta ah tigidkiisa in go'aan baad laga bixiyo kadib in marka uu ka soo dego
wilwal airport in baawur dowladeed oo lambar 4 oo lambarka dowladda Ethiopia ay ku xiran tahay lagu soo qaado kadibna la keeno hotel yiraahdo Nogob Guardian Hotel oo ku yaala magaalada Jigjiga kadib la siiyo gaarigaas oo uu ku socdo kadib la geeyo meel khaas ah isagoo aan arag qofkaasina aan u kurgelin dhibaatooyinkii iyo tacdiyadii lagu haystay shacabka lagu hayay dhibaatooyinka iyo tacdiyada ugu badanna lagu hayay shacabka dalka waqtiyadii aan la xidhay waxaa la xidhay erey aan idhi oo ahaa miyaanan muwaadin ahayn sababta ay tahay mar walba in waddo kastana lagu baaro maxay tahay dalku ma furunba meel kastana ciidan la istaajiyey dadkii la baarayo gabdhihii la kursanayo habeen walba dadkii jeel loo taabayo waxyaabaha aan loo adkeysan karin waxyaabaha ay ugu daran ee arkay waxay ahayd markii horteeda gabdha jeelka igula jiro kursi lagu sameeyey kadib markii aan jeel ka soo baxay ayaa damiirku isiin waayey in aan kusii noolaado waddanka waxaanan go-aansaday in aan ka soo baxo waddanka isagana imaado Ethiopiana waxyaabaha ilaa ay hadda ay qaadan laadahay ay ka mid tahay ereyada uu isticmaalay inay ee ah annaga ayaa oonay lafa haddii aan erey af habashi ku sii daro waxaa ka mid ah ereyada uu yiraahdo inya onelaf bal soo warawji wato yelan onelaf inyane uma soo ubono agari ma qatil soo oo macnaheeda ah iyagu waa ubo ayaga ayaa dalka kubiyay annaga ayaa onelaf taasoo ay madaxweynayaasha hore iska ilaalin jireen arrintaasna ay tahay guud u timid shacab weynaha reer ugaadiniya meel kasta ay joogaan waxaan qurbo joogta kala dardaarmayaa haddii ay dhabto ka tahay waddaniyad oo dalka soo arki karaan in ay marka hore bal ha ogaadaan inay marka hore tigidhkooda ku yimaadaan kadibna in bal xorriyad la siiyo oy lugeyn karaan ma jirto qof lugeynayo waxaa la siinayaa gaari dowladeed waayo qofka hadduu gaari dowladeed wato wax baaritaan lagu samaynayo ma jirto gaariga dowladda waxaa lagu gartaa number 4 qofka number 4 hadduu watana taargada unbaa saa loo eegaa numberka kadibna baabuurku sii socdaa waxaa la leynaya waxaa la kusanaya waa shacabka okay bal qurbo joogto ha isku dayaan bal inay samayn karaan inay soo eegaan jilugadin halin oo qurbo joog oo jilugadin ilaa iyo hadda soo eegay ma jirto soo arkay waxa weeyaan haddii ay dhacdo inay qof amar ku bixiyay waa laga yaabaa in la geeyo jeelka maxaabiista oo waxa weeyaan ul dabada loo qabto nin kasta oo cabsanayo bullada dul taagan yihiin in la yidhaahdo waxaa ku dhawaaqa qofku markuu maxbuus yahayna waad garan kartaan in xorriyatul qowlkii iyo xorriyaddii kale buu ka xinaya taasoo weliba tacaddi iyo dil iyo kufsi iyo garaacid ay u dheer tahay qof dhibaatada loo geysanaya wax kasta oo la yidhaahdo waxaan indhaha iga saaray anigu oo jeelka igula jiray ninkii lahooyadii baan kufsi ku sameeyey oo iga wallaahay oo iga billaahay oo iga tollahay oo 3 jeer ku dhaaranayo arrintan aan iminka ka sheekeynaya ma qusayso dadweynaha wadaniga oo keliya waxay qusaysaa dhammaan dadka deegaanka degan iyada oo uu ninkii la yidhahdo Cabdullaahi Itoobiya far gaara ku rugay boolisku waxay dhacayaan kufsanayaan waa ogaadeen oo keliya laakiin ha ogaadaan dagaalkii ka dhacay Xarshin ee lagu gumaaday shacabkii reer Xarshimeed ay u geysteen ciidamada liyu boolisku waxaa leenayay inuu ahaa ninkii loo odhan jiray inay amarkana ku bixiyey waxaa leenayay inaynan hayn ogaadeen liyu boolisku aynan matali karin shacabweynaha ogaadeen in ay dhibaato bacan iyo kumayaan dowladda Itoobiya in ay warka hayso ballanqaadna dowladda Itoobiya ku fulisay ogaadeen isaga ay soo weyn isaga ayaan isu daray si kastaba ahaatee waxaan qurbo joogta leeyahay bal waxaad u kurgashaan ood weydiisaan in ilay sababta dadka jeelka ku xiran dadkooda ay u arkila yihiin maxay tahay waa mid meesha ku jirta qurbo joogtu sababta ay jeelka u tagi laadahay maxay tahay waa mid meesha ku jirta sababta qofka meydka jeelka laga soo qaado kaaramarda hospital qolka meydka loo dhigay 3 isha uu ka tiinaysnaanayo maxay tahay la qof waa meyd xadadkiisa lagu wareejinayo waa waxyaabo badan oo meesha ku jira arrimahan leeyahay oo kulgulita ku sameeyaan qurbo joogta waa arrintaas waxaa jirtay hadda ka hor golo wasiirra oo ka yimid dowladda Itoobiya yimid Jigjiga ka soo degay garoonka Wilwal ma ay dhiseen waqtiga ayada wadada isku xidhay dhagax buur Jigjiga wadada rafka ahayd nimankii wasiirrada markii ay wadada rafka soo mareen iyagoo hadda ka hor Jigjiga inuu rag ka mid ah ay yidhaahdeen indhee wada Soomaaliyaano iyo gabbaan mindhinow iyo mangal oo macnaheedu tahay ma Soomaaliyaan galay waa maxay wadadan rafka ah Jigjiga iyo dhagax buur laamiga laga sameeyna horumar ma keeno ee waxaa horumar keena shacabka gumaadka lagu hayo oo laga daayo oo kaliya taasoo ah 175 boqolkiiba 75 xoolo dhaqatada ee gumaadka lagu hayo waayo waxaa dareemi kartaan xabashidu waxay ku mahmahdaa
ونتي كان عجريسو مقدل علبات قفكو هدو حقيقة كو شيغو إنا الشافعة ويسو عدي حقيقة كو شيغ أي برن وشيد إنا إلي وحو الشارو كشدي سيدو قمالي لها شعب كان كيلو بعدين ولنا إكيسين لها شفاي دولا في علي يوسف وحونا بلان كو قادي إلا أولادين ولا إكيسين لها علي يوسف إن أونا كدينين دلكا يبابا يدعا يكفسك يبوك waxaana dareemi kartaan dadka qurba joogta waxaan leeyahay mar labaad waxaan leeyahay mar saddexaad waxaan leeyahay awal waxaad u qayliyeyseen mid u rafaadayseen xorriyadaha iyo qadiyadda ogaadaya sidii ay ku gaari lahayd anigoo cabdirasaaq xasan jaamac waxaan idinkula hadlayay waa wax sharci ah waxaan idin leeyahay waxaan soo bartay anigu dastuurka etoobiya ee ka kooban 106 xaraf 106 qodob ee ka kooban 12 cutub sharciga etoobiya kuma jirto madaxweyne inuu tago jeel sababta keentay maxay tahay inay intuu jeelka dhex istaagay inuu maxaabiista u kala saarsaaro qabiil hebel sharciga Itoobiya isla sharciga Itoobiyana jibinaya Itoobiyana taasi way ka indha gaabsatay waa waxyaabaha ugu baahan in dalka ku soo arkay inay ilaa wuxuu dhiisa saaray kabar jeel waadeen ku jirta oo lagu hadlo wax kaga jiro oo agfashin ku dhacay oo ku soo geystay kadibna uu yiri hooyadaa iyo dhiladii ku dhashay was bartaas ku dhiman waxa wallahi billahi oo tallaahi indhahay inaan saxay waxaweyaan dad badan oo jeel ka soo baxay oo jeelkii ugu jiray waqtiga mushaarac baa kamid ahay nimca buugiya baa kamid ahay meel kastoo dalka ka joogaan adduunyada ka joogaan sida aanu idin bay uga taariikhin karaan cid walbana way weydiin kartaa okay heshiisyada gaarka ah ee inay Itoobiya la siixday waxaa kamid ah shaqoollada uu doonayo dadka gaar ah inuu u diro Maxamed Cabdi Xismaan oo deegaanada in rag jooga deegaanka oo dhex jooga ogaadaya oo kamid ah dawladda dabaqooliga in baasaboorka inta loo gooyo London laga dejiyo kadibna Xismaan ay dhifurin ku sameeyaan kadibna ay dawladda Itoobiya ballan qaaday sidii qofka noocaas ah ay u oran lahayd annaga aan ugu soo wareejiyo waddankan ugu dhashay ma fahanti qofku dilay waa nin ajnabi ah oo Soomaaliya qofka dilayna waa nin ajnabi ah oo dhashay Itoobiya sida la adigay annaga ayaa maxkamad saaranayna aan ugu soo wareejiyo heshiisyo noocaas ah wiililay dawladda Itoobiya saxay waa sira gaar ah waxay wallahi oo xaqiiqo oo dhab waxaad ku garan kartaa siraha gaarka ah ragii hay waxaa kamid ah kulid cusub oo ah ninkii keenay teknolojiyadan in la iska dhageysto tooraanyaha kadib gulay cusub in lagu xad ilaala gaar lagu sameeyay in leeyli kadib xagga ka keentay gaariga waa ninkii idaacadda ESTV aasay waa ninkii furay Akara news kan yiraahdo waa ninkii gacantiisa ku sameeyay ee furay weeyaan aad bayna dadku u yaqaanaan waa nin weynaa waa nin xidid gulay haddana waxa ay dadku og yihiin inuu ku xiran yahay suway oo nin cadeynaya marka Axmaaro iyo Tigray waxay balan qaadeen sidii ugadin isu soo yeelay dalkana maanta ninka gacanta ku haya inay ilay ma aha ninka gacanta ku haya ee fadhiga lacagta loo geeyo waa ninka la yiraahdo Cornel Chagaye ee fadhiya magaalada Jigjiga gaar ahaan Galcas marka dhammaan ummadda u dhalatay dalkan ugaadaya iyo dhammaan dadka jecel qadiyada ugaadaya in ay mar uun xornimo gaaraan waxaan leeyahay uun ku baraarujinaya siiba qurbo joogta maskaxda laga hadayo ee loogu tagay Sweden ee loogu tagay Mareykanka ee loogu tagay Ingiriiska ee laga dhaadhicinayo fikirka bixinta ee laga dhaadhicinayo waxaad idin ka bixinayna tigidhkii Go'aanbaaga ee la leeyahay dhulka ma dhisan kartaan dhibaatooyinka noocaas inay u kordhaan qurbo joogta dad badan oo waxaa jira qurbaha ku nool oo ilaa oo hadda qurbo jooga dadkooda ay ku jiraan jeelwaaneen awoodna aan u lahayn dadkooda inay soo eegaan laakiin lagu qasbi karo ama laga dhaadhicin karo in tigidhkii Go'aanbaaga laga bixiyo waddankiina ay soo arki karaan lana tusayo meel gaar ah sida la yiraahdo meel la yiraahdo Gole Xaajo oo Jigjiga hoos timaada dhagax buur oo haysto Jamaal oo gudoomiyaha gobolka dhagax buura oo leeyahay martiqaad gaar ah oo samee dadka inaan inta la dhaafin waxaan anigu joogay Jigjiga waqtigii imanaysi guddi loo oran jiray waxa yimaadeen United Nations oo xaqiiqo raadina guddigaas xaqiiqo raadin ma ahayn laakiin waxay ahayd guddi u socday in jeebka loo soo buuxiyo in martiqaad loogu sameeyay guriga martida in casho gaar ah loo sameeyay in dhar loo iibiyay in jeebkana loo buuxiyay ninkii xaqiiqada dhabta hayna in lagu xiray Addis Ababa oo la yiraahdo Cabdibakar ahaana General Staff Security UN ilaa iyo xataa uu ka hadlay Ban Ki-moon
awoodna ayuu inta xataa u yeelan weyday in ay sii daysato staafkooda hayiin xaqiiqada dhabtee deegaanka laguna eedeeyay waa nin deegaanka u dhasho ogaayaan sidaa la adigeed un-ta waxaan leeyahay united nationkan waxaan leeyahay dalkani waa dal africa ka mid ah wadamo badan baa gumaysiga noocaas oo kale ah ka jiray wayna ka dulqaadeen iyaga oo la garab galay dadkani waa dad afrikaana u dhashay dalkoodii waxaa lagu haysta waa dalkoodii waxaa la leynaya waa dadkoodii in ay xaqiiqada dhabta ah arkaan yimaadaana deegaanka marka ay imanayaan deegaankana in ay deegaanka iyaga oon wax ciidana ama wax liyu booliska la soconin in ay shacabka xog ururin ku sameeyaan waayo ninka shacabka ah markuu arka nin liyu boolis oo ninka caddaanka ah la socda waxaweyaan waa nin naftiisu cabsanay waayo ninkan caddaanka ah waxba uma qaban kara beri ka tegaya berina waa la layn dad badan usaa gudaayna way jirtaa marka waxaan leeyahay mar labaadna waxaan leeyahay inay caalamku usoo jeestaan oo ilkaara ku fiiriyaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi